mudane Salaad Cali Jeelle waxa uu leeyahay cagmadhiga aad iyo aad u mahadsan tahay waana ku salaama runtii arinta ka soo yeerta dhawaaqa Nairobi ka soo yeero xildhibaanada is aruursaday runtii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kuma aynan farxin waxayna tahay is aruursigaas mid hadda xilli ku haboon aan jirin ku aaday hadda xukuumadan hadda jirtana buuq uma baahno iyada dhamaa waxay jirtaa ma taqaanaa muddo hal bil iyo 18 maalmood ay joogtaa markii la ansixiyo kadib sidaa darteed marka arintaasi waa arin dhaawacaysa isbedelkii siyaasadeed iyo guulihii ay gaartay ummadda Soomaaliyeed oo ku saabsanaa rabitaanka shacabka iyo baarlamaanka guud ahaan oo isbedel muddo lagu soo jiray oo lagama maarmaan ahaa meesha ma taqaanaa ka dhacay oo la raba in markaan buuqii muddadii 2 sano ugu dambeysay lagu soo jiray dalkan tiihii iyo dhibaatadii badneed iyo isriixriixi siyaasadeed oo badnay hadda uma baahna in mid kale la abuuro runtii dalkaanina wuxuu leeyahay cadow badan oo isugu jira koox diimeedyo siyaasadaysan oo iyo kuwa hubaysan oo xaq jiro oo qora caaradiis wax ku raba marka waxa loo yaqaano sectarian ayaa dhibaato badan dalkan muddo ku soo hayay marka hadee waxaan leeyahay marka baarlamaankaas ama xibnaha meesha isugu tagay is aruursigaasu waa mid qaldan waa mid aan ummadda Soomaaliyeed aynan aqbalayn waana mid hatta hadduu dhacayo dalka gudihiisa inuu ka dhaciyay aheeda Muqdisho maanta hoteelo badan ay leedahay relaxi ay leedahay marka aad iyo aadaan arintaas martaqaana oo cambaareeyna mana ahan mid ku haboon waqtigan saasaan aan mataqaanaan uga jawaabi lahaa arintaas wahagaag mudane Salaad marka la fiiriyo arrimo badan ayay dadku ka siman yihiin ama siyaasiyiin ha noqdaan ama dadka shacabka ah waxaan arrimahaas ay yihiin xilliga lagu soo beegay iyo xilliga dawladdu dhisan tahay iyo dadku waxa ay filan karaan iyo shacabka laftiisa oo qaba in dawladooda lala xisaabtami karo laakiin wax walba mansabkooda iyo munaasabadooda lala fiiriyo marka arrimahaas la fiiriyo sidaad u aragtaa siyaasiyahan adigu markaan taariikhda horta wax yar dib ugu laabto dalkaani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan dawladnimada Soomaaliya hadda meesha ay soo gaartana dad badanaa ku dhintay dad badanaa ma taqaanaa soo gaarsiiyey juhdi badanaa ku baxay marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meeshay hadda taagantahay inayna dib uga ma aqbalayso inay dib uga naqato tala ahaan marka aniga waxaan ku tala bixi lahaa in fursad la siiyo dawladdan cusub oo madaxda ka yahay khayre xukuumaddan khayre oo madaxda ka yahay oo ra'iisul wasaarahan cusub oo hogaaminaya runtii markii la dhageensado waxyaabo badan oo la taaba kara ayay carabka ku dhifatay waxyaabaha dawladdan laga rabana waxaa kamid ah inay doorashooyinkii ay samayso inay horta amniga sugto labo inay ma taqaanaa doorashooyinkii sharcigii doorashooyinka ay meel mariso dastuurka inay ma taqaanaa dhammaystirto dowlad goboleedyadii inay ma taqaanaa u bedesho dowlad goboleedyo sharciya oo dastuuriya oo markaasi haddana isla markaasna khayraadkii sidii loo qaybsa lahaa ay meel mariso waxyaabahaasaa dawladdan looga baahan yahay marka baarlamaanka waxaan aniga ku tali lahaa inay shuruucdaas ay ka shaqeeyaan ay waajibaadkooda qabsadaan xukuumaddana ay u fududeeyaan howlaheeda xukuumadduna ay howlahaasi ay mataqaanaa diiradda saarto maanta marka 2 sano ugu horeysaba waxaa la rabaa in looga faraxasho dastuurkii oo dhammaystiran khayraadkii oo la yaqaano sidii loo qaybsaayo ay caddahay iyo isla markaasi dowlad goboleedyadii oo dastuuriyahoo shuruucda waxay xaq u leeyihiin iyo waxay ayna xaq u lahayn kala yaqaano dowladda
وهجاج أدبو ما تسيني هاي مدن سياسي صلاة علي جلة